bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal kusoo dhowaada wararkeenna aan idinka hayno dhankaasi ee dalka Itoobiya. Qodobada wararkeenna daawadayaal aad ku maqli daawan doontaanna waxaa ka mid ah TPLF oo la wareegtay magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha deegaanka Amxaarada iyo dagaalo la isla gabaldhacsaday maalinnimadii shalay ahayd oo saaka halkoodii ka sii socda. ciidamada cirka ee dalka Itoobiya oo duqeyn isdaba jooga la eeganayay dagaalyahanada TPLF iyo deegaano hor leh oo diyaaradaha dalka Itoobiya ay gaala bixeen. khasaaraha ka dhashay duqeyntii shalay ee Maqale oo isa soo taraysa dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaana la soo warinaya. dowladda dhexe ee Itoobiya oo war rasmi ah ka soo saartay duqeynta isdaba jooga ee gobolka Tigreeg ka socota. qaramada midoobay dalalka reer galbeedka oo iyaguna ka hadlay. intaasi daawadayaal waa qodobadan idin hayna kuwa ugu doorka roon haatanna kusoo dhowaadaha isagii oo faahfaahsan. aan ku bilownay dagaal culus oo gobolku isugu dhacay ayaa ka socda deegaanka Haaraha iyo nawaaxigeeda, halkaasi oo ay ku hardamayaan ciidamada dowladda iyo kooxaha TPLF-ta. deegaankani oo ku yaala gudaha deegaanka Amxaarada, ciidamada dowladda iyo xogaga Tigreeg ayaa dagaalku ku dhex maraya iyadoo ciidamada dowladdu ay aad u badan la sheegay in lagu sii daabulayo deegaanka lagu magacaabo Hayk oo saaka aroornimadii ay la wareegeen xogaga TPLF-tu. xogaga Tigreeg ayaa sheegaya inay horumar degdeg ka gaarayaan aagga furinta hore, iyagoo sheegay inay ku sii saqayaan furimaha hore ee nawaaxiga magaalada saddexaad ee ugu weyn deegaanka Amxaarada ee Deseya. ciidamada militariga waxay isku dayayaan inay iska hortaagaan duulaanka TPLF ee ku aadan magaaladaasi Deseya. xogtaan hadda helayna ayaa sheegaysa in Hayk ay dagaalo adag ka socdeen saaka ay gebi ahaanba la wareegeen gacan ku haynteeda xogaga TPLF-tu. ciidamada Tigreeg ayaa sheegay inay la wareegeen magaalooyinka Hayk, Bistema, Merie iyo nawaaxigooda. afhayeenka TPLF-ta Getachew Reda ayaana xaqiijiyay in ciidamadoodu la wareegeen aagaasi aan kor ku soo xusnay, isagoo sheegay inay u jihaysteen dhinaca iyo magaalada saddexaad ee deegaanka Amxaarada ugu weyn Deseya iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Kobelcha. waa sida uu hadalka u dhigay afhayeenka TPLF-tu. dowladda federaalka iyo maamulka deegaanka Amxaarada ayaan ka hadlin weli sheegashada xogaga TPLF-ta. waxaa la soo warinayaa in ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ay weerar kale oo cirka ah ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Agbe Temben. Agbe waa deegaamo ku yaala deegaanka lagu magacaabo Abargele ee gobolkaasi Tigreega. warar kala duwan ka soo baxaya duqeymaha isdaba jooga ah ee ka dhacaya waqooyiga Itoobiya. duqeynta ayaan la ogeyn ilaa iyo haatan khasaaraha ka dhashay, balse waxa isa soo taraya duqeynta dhanka cirka ah ee dowladda federaalku ka fulinayso gobolka Tigreeg, inkastoo ay dowladdu sheegtay inay la beegsanayso duqeymaha xarumo hubka kaydka ee TPLF ay ku leeyihiin gudaha deegaankaasi Tigreeg. si kastaba ha noqotee ilo wareedyo ku sugan aagaasi ayaa ku waramaya in goobo shacab ay degan yihiin ay duqeymahan ugu dambeeyay la beegsatay dowladda dhexe ee Itoobiya. dhanka kalena afhayeenka Tigreeg Getachew Reda, isagoo ka hadlayay duqeyntii hore ee ka dhacday Maqale, ayaa waxa uu sheegay in duqeymahani ay ku dhacayaan goobo shacab ah, dad badan ayaana ku dhintay, hanti badan ayaana ku burburtay, ayuu yidhi afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda. duqeyntani hadda laga soo warinayo inay ka dhacday Agbe iyo sidoo kale Temben ayaa noqonaysa tii labaad ee maalin gudaheed ka dhacda gobolka Tigreeg, halkaasi oo ay dowladda federaalku ka geysanaysa duqeymo aan kala joogsi lahayn, iyadoo midii horena lala beegsaday caasimada gobolka Tigreeg ee Maqale, gaar ahaana xarunta injineerada ee Musfin oo ah shirkad farsamaysa agabka gaadiidka ee kala duwan. ugu yaraan 20 qof ayaa la soo wariyay inay ku dhinteen duqeymaha Maqale, 79 kale ayay dhaawacyo kala duwan ka soo gaadheen, sida ay ku waramayaan ilo maxalli ah oo ku sugan deegaanka. TPLF ayaa sheegtay in dowladdu ay bartilmaameedsanayso dadka shacabka si ay uga aargudato askarteeda faraha badan ee lagu laayay furimaha hore ee dagaalka, halka dowladuna ay leedahay goobo ay hubka ku keydsanaysay TPLF ayaan duqeymaha la eeganay.
dowladda dhexe Itoobiya ayaa war rasmi ah ka soo saartay duqeynta isdaba jooga ee gobolka Tigreega ka socota qaramada midoobay iyo dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna si aad ah uga hadlay afayeen u hadlay dowladda federaalka ee Itoobiya oo la hadlayay Reuters ayaa sheegay in ciidamada cirka ah ee Itoobiya duqeyn labaad ay ka fuliyeen Agiib oo 80 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega isagoo sheegay in duqeynta ay la beegsadeen xarun ciidan iyo goobo hubka lagu kaydiyo oo ay TPLF lahayd duqeynta ka dhacday Agiib ayaa ka dhigaysa in dowladda dhexe hal maalin gudaheed laba duqeymood ka fulisay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya oo sanadkii la soo dhaafay colaado ka holcayeen maamulka gobolka Tigreega ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay in xarumaha shacabka ay duqeynayaan dad badanina ay ku dhinteen duqeymahan isdaba jooga beesha caalamka oo Mareykanku hormuud u yahay ayaa si weyn walaac uga muujisay duqeyntani cusub ee ka dhacday waqooyiga Itoobiya gaar ahaan Tigreega waxayna ku baaqayaan in la joojiyo colaada qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad rayid ay ku dhaawacmeen kuwana ku dhinteen kadib duqeyntii cirka ee ka dhacday magaalada Maqale caasimadda Tigreega wakaalada wararka ee Reuters ayaa soo xiganaysa afayeenka qaramada midoobay oo sheegaya in dad rayid oo ay ku jiraan haween iyo caruur lagu dhaawacay magaalada Maqale qaar lagu dilay xarunta gobolkaasi Tigreega kadib uu yiri markii ay ciidamada cirka ee Itoobiya ay duqeymo ka fuliyeen aagaasi afayeenka qaramada midoobay oo wariyayaasha u sheegay isagoo ku sugan New York in dad shacab ah ay dhibaato ka soo gaadhay duqeyntan aan kala joogsiga lahayn ee ka dhacday gobolkaasi Tigreega dalka Australia oo isaguna bayaan ka soo saaray xaaladda Itoobiya ee si xumaanaysa ayaa waxa uu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa bayaan uu kaga hadlayo xaaladda waqooyiga Itoobiya iyo duqeymaha ka dhacay Maqale soo saaray waxa uuna yiri Australia waxay aad uga walwalsan tahay wararka sheegaya duqeymaha cirka ee lagu qaaday caasimadda Tigreega ee Maqale iyo iska horimaadyada sii kordhaya ee waqooyiga Itoobiya Australia waxay cambaaraynaysaa dagaalka socda adeegsiga tacadiyada galmada iyo xanibaadda gargaarka bini'aadanimada iyadoo colaadu ay ku dhowdahay sanad waxaa sii socda colaada waxayna saameyn xun ku yeelatay nolosha dadka rayidka ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay Australia waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada isku haya colaada waqooyiga Itoobiya inay isxakameeyaan oo ay joojiyaan rabshadaha gacanka hadalka hay'adaha bini'aadanimada waa in sidoo kale loo ogolaadaa inay siiyaan taageero nafhurnimo oo degdega malaayiinta qof ee ay saameysay colaadu Australia waxay ku boorinaysaa dowladda Itoobiya iyo jabhadda xoreynta dadka Tigreega inay si degdeg ah u joojiyaan colaada oo gaaraan xal wada xaajood oo lagu dhameynayo colaada ka taagan dalkaasi Itoobiya guud ahaan daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararkeennii ku mahadsan idin la socodkiina